aniga Cabdiraxmaan Cabdishakuur berigi lagu duulay ka horaasa waxa la idhi jiray madaxweynuhu waa ku raadaaye Shariif Cabdo maama Shariif dadkii ila shaqeeyay aheedo ku dhigi oo yiraaye maxaad ugu tagi weyse aniga waxaan dhihi jiray waxaan ugu taga Allah iga haayo maalinkii wiilkan la weeraray ayaan maaragtay waa kaas oo iga soo horjeeday weligay uma aan sheegin ciidan u sheega male aan u tagay markaan u tagay arintaana waxaan iri madaxweyne nin la jecel yahay iyo nin maaragtay adigu aad magacaawda ra'iisul wasaare adaa magacaabay adiga ninkii dhamaay ilmo badan aad dhumayaan iriyo waaga cidoori la yihiin habeenkii mid dhacday waaga ra'iisul wasaare aheed oon ku banaan bixinana ka daran fursadaha aad soo martay reer soo maray ma jiro in aad saanad military maanta lagula duulo ee maaragtay wixii jira wiilkaas oo dhibaato bil medel sameeyay ma qurux badnayno meeshaan 4.5 oo dalkan iyo maaragtay dib u heshiisiin oo ku jooga oo wax lagu dhistay in aad maaragtay aad wacda siyaasiyiin aad wacda odayaashii oo maaragtay u sheegtiin aqabada oo idinku yahay soo ma qurux badnayn ilaahay waxaan u sheegay hal jawaab ka soo bixi weys dhafoorada uu qabsaday lamada dhafooro ku dhaganay wuxuu yiri maama Shariifooy waa waagi boosaasi iyo la tagi garow iyo la aaday haddaan soo noqdo aan ku soo wacaha maalinkii ay igu dambaysay maalinkii ay igu dambaysay waxaan haddaba idin sheegayaa wiila hooyadiis maaragtay ximbaaray oo waayeel ah waa hilmiyay markay qof weyn dheer oo lugi dhulka jiitamayaan waay waxay tir kuma hilma jirnahay hilmin dushay ka qaniintay waxaa la rabaa meeshaan masawiro u dhigsan jiray ninka la yiraahdo Farmaajo xurnimo ku joogay ana ko 100 haween inta uu yiri haweenku ay yimaadeen aan meeshaan ugu nimid oo noo sheegay maaragtay inaan dhahno waa in gacan la siiyo annaga waxaan dhahnaa dimbi ka wada gelimayna dadka wiilashayni waaye qofkii maarta ku soo baxda ayaan kula shaqay doonaa waxa oo asagu soo sameeyay oo dhibaato ma oona arag maxaan ku leeyahay waxaan ogaayo dhihi jiray saa loo leeyahay oo leeyahaybiha oo doorasho looga warama cid laga yeelay ma jirto inuu diina maartay aan fiirsano la fiirsan maayo lamana fiirsan karo waa loo sheegaa wixii maartay hadoo maartay haweenku kaalin weyn waaye shirki Jabuuti oo Cabdiqaasin waxa baxda beelaha Soomaaliyeed kamida oo duubabkii iyo adduunkii inta loo tagay diideen annaga is hortaagnay waana naga ogolaadeen laakiin madax duub yaqaan la duubaha Soomaalidu tiraa dad u haya ixtiraam oo yaqaan dadkan waxay mudan yihiin ayuu dadkaas u ahay meesha meel maaragtay dad kooban oo kula yaabaya ee walaxa noo fiican waa wada ognahay dhagaha maliin dad ay soo aruursadeen oo adiga ku dhahayo saad u sheegtay waxaan waxba naga ma haleysneen meesha dhibaato waa dhibaatada taalna nina wuxuu inta u dhigta sagaar heerkii yaqaan oo ugu tagay asawir dhaga weyn wala taan u dhigta ma anaku fiilmahayn jacaylkii ninkaas aan qabiil ku fiirin oon cid kale u fiirin kulligayna isaga wada mid ahayn halahaas oo amaal daraa awlaad nabi aadan oo amaal daradaas qabtaba lama arag wallahi waxa la rabaa maha meesha tan sidaad u fajacsantiina u fajacsana wallahi billahi idinka midda aad aragteen oo meel kasta la isku soo qufsahayo aan wada arkowhayna dadkii damiirku waa ka tagay waxa la rabaa meeshaan annaga dawlad heer Muqdisho dawlad ma rabaan ayaa meel kasta mari jirta taasaan ma aragta dhulka isu dhignay oon u adakaysanay oon gowsaa isugu riixnay markay haddii muddadii ay la gaaro asaan wax la ogoleyn wixii imaahaaya waa la garan karaa